ururka wacyigelinta iyo la dagaalanka qaadka ee ACMO oo ah urur ka dhisan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa habeenkii xalay kulan cawaysan la qaatay dhalinyarada iyo bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer. kulankan ayaa laga wada hadlayay dhibaatooyinkii caafimaad darrada uu keenay qaadku waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ururkaasi dhakhaatiir haween dhalinyaro iyo martir badan waxaana ugu horeyntii halkaa ka hadlay kana warbixiyay cawayskan gudoomiyaha ururka ACMO Farxaan Cilmi Cali. caawiya cawayska ACMO waxaan ugu talagalnay run ahaantii inaanu la qaybsano waqtiga dhalinyarada urur ahaan mar walba waxaan u taagannahay sidii aanu mar walba uga dabargoon lahayn dhalinyarada wax kasta oo aafo ku ah noloshooda sida qaad sigaar drugs ay nooc kasta oo ay noqdaan. ururka ACMO waa urur u taagan dhisidda bulsho, waa urur u taagan mustaqbalka beritoole. waxa diyaarinoo ah oo aynu doonaynaa bal dhibaatooyinka qaadka sababaha uu ku keeno qofka caafimaad ahaan oo doctorku run ahaantii wax badan insha Allah inaga fahansiin doono. barnaamijkan maaha ACMO mid ay qabatay laakiin waa mid ay u qabatay dhalinyaradooda, waa mid ay u qabatay gobolkooda, waa mid ay markastana ku hawlantay insha Allah tacaala inay qaban doonto. waxa iyaguna halkaa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Addis Ali Cashuur Dr. Aadan Axmed iyo Abaan Faarax Murtiile. waxaan rajaynayaa qaadka in lagu jihaado insha Allah haddii af lagu jihaadayo iyo haddii jeeb lagu jihaadayo iyo haddii si kale loo jihaadayaba waxaan bogaadinayaa oo aan aad iyo aad ugu hambaliyaynayaa ururka wadaniga ah ee ACMO sida qiimaha leh ee qaayaha leh ee qadarinta leh ee abaabulka fiican ka muuqday barnaamijka noogu soo diyaariyeen. qaadku caleentiisu waxa ku jira laba daroogo oo la yiraahdo katinon iyo kathin. qaadkii waxaynu soo sheegnay inuu yahay daroogo laakiin bahashan katinon tala qaad ku jirta iyadu markaa waxa weeye ilaa markaa qofku afka geliyo iyo ilaa ay ka baxayso dhammaan systemiska ay sii marto oo mid walba mid si uu si dhaawaca. jaadba gabyo yiri markii UK laga joojay jarmaadiyo caraababa ragii jarayay laantayda ragan anigu jaanjaamiyee jaha kasta u diiday soo kuwan jarmaadee kacee shaqadii joogtayey soo kuwan habli jalaqsanaa meher ku jeebeeyey. gabagabadii waxaa halkaa ka hadlay abwaano dhakhaatiir haween dhalinyaro iyo martir badan kuwaasoo dhammaantood ka warramay dhibaatooyinka uu qaadku leeyahay. Ibraahim Faarax Macaan iyo Honkebel TV Burco.